Somali Kids TV. ولذلك waxa ugu weyn ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ina amray waa tawxiidkana macnaha loola jeedo waxay tahay qofka inuu cibaadada Ilaahay oo kaliya u gaar yeelo. Waxa ugu weyn ee Ilaahay uu inaga reebayna waa shirkiga macnihiisa waxay tahay in Ilaahay wax kale la caabudo oo Ilaahay ka soo haray. waxa ugu mudan ee qofka muslimka ah la rabo inuu ka fikiro waa inuu ku dadaalo tawxiidka, shirkigana iska ilaaliyo. qof kastoo mu'min ah waxaa la rabaa inuu tawxiidka qabsado oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaliya u gaar yeelo cibaadada, shirkigana ka fogaado. sababtaasi iyo wadadaasi ayaa looga badbaadi karaa naarta, laguna mudan karaa in janno la galo. qur'aanka kariimka in badan Ilaahay wuxuu noogu cadeeyay oo noogu kala dhigdhigay tawxiidka. Ilaahay wuxuu noo sheegay jinni iyo insi in uusan u abuurin ilaa inay Ilaahay caabudaan maahane. ka wax arsaaqa waa Allah subxaanahu wa ta'ala. Ilaahay risq nama weydiisanin, waa ar-razaaq, awood adag u sugnaatay oo weyn. waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayado fara badan qur'aanka uu ku cadeeyay tawxiidka. wuxuu Ilaahay inoo sheegay jinni iyo insi in aan loo abuurin ilaa inay Ilaahay caabudaan maahane. Somali Kids TV.